waxa reerkaada aad u burburisay waa murugo yar u dulqaadan weyday waxaad u tahriibtay waa silic yar oo dalkaada aad ku sabri weyday waxaasoo dhibaato ah aad u gashay waa liajli dunyaa aakhira ma ahan waxa maanta intaa kaa soo reebay waa murugo yaroo kula soo daristay waxa aad kaniinida u qaadatay waa murugo yaroo kula soo daristay waxa aad shiishada iyo daroogada iyo jaadka iyo khamriga aad u aaday waa murugo yar oo kula soo daristay iyo nafis baan dareemaya iyo stress free iyo depression waxa aad salaadaha uga tagtay eed hurdada u dheeraysatay waa inaad raaxo dareento ood murugo iyo wejigaada oo ay ka muuqato macnaha huruf ay ka muuqata darteed ayaad u samaysay walaalkay waxaasoo dhan murug kaa qaadi maayaan walaalkay waxaasoo dhan walbahaar inay kuu siyaadiyaan ilaahayna aad kaga fogaata ma ahaye wax kale kuu tari maayaan walaalkay murugada maanta waxa qaada waxa farxadda keena waxa ilaah subxaanahu watacaala loogu dhowaadaan ku tilmaamaya kow haddaan ku bilaabo murugada waxa kaa qaadi karaya waa allah subxaanahu watacaala haddaad beej cusub iyo maalin cusub aad doonayso waxa kuu tilmaamaya waa kalaamullahi subxaanahu watacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa muddo murugooday nabiga calayhi salaatu wasalaam markii inqitaacu lwaxyi xoogaha uu waxyigii ka kala go-ay ayaa murugo yar la soo daristay nebigu sidee buu u xaliyey haddaba ilaah subxaanahu watacaala sidee buu nebigu u dawiyey calayhi salaatu wasalaam liannu inaga waxa inoo ah rool mooreel inoo ah oon ku dayanaa oo qudbo inoo ah waa calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu yidhi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحا إذن كسكناتي رسولك إلهي سبحانه وتعالى كدايشا قرح بدن أو نكسن ولا شيء ولا لك قالقا هدات نبي كدايته نبي سو اسكو داوين جري نبي سو مروغه إيه مرحلة أقود بجري أذقنا إله سبحانه وتعالى وكا قاضية نبي مركي أرنتنا إلى سو دريستي إله سبحانه وتعالى سورة يروكوبا أو أتقانو أو قرح بدن بإله كسو دجي سورة ضائية هدي أتكون لقانتو هداد أخرذو هداد فهنتو هدي سورة iyadaha aad ku tukato habeenkii haddaad ilaahay ku barido ilaah subxaanahu watacaala waa uu kaa qaadaya suuraddaasi waxa ay tilmaamaysaa saddex qaybood bay tilmaamaysaa qaybta hore ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu kaga sheekeeyey inuu ilaahay beejka cusub dadka u bilaabo inuu maalintii ilaahay uu keeno in quruxda ilaahay iftiinka uu keeno iyo in ilaah subxana wataala xasilloodina uu keeno ilahayna waa ku dhaartay waxa uu yidhi والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر والضحى إلهي وحا ku dhaartay xilliga barqada ah maalintii markii waagu uu bariyo qurux iyo iftiin ay noqoto qorraxdu ay mataqana fulaaraheeda ay kala taagto dadka wajida ay ka qabato dhirtu ay soo baxdo ubaxu uu kala baxo biyuhu ay birbirqayaan nolosha quruxda badan oo ilaahay keenay ilaahay ku dhaartay subxaanahu watacaala iyo habeenkii marka uu xasilo marka itminaan iyo raaxada la dareemo markaysan qadhu yaraato ilaahayga labadaas xilli sameeyey ee sidaa u kala qurxiyey ayaa adigana noloshaada mid saa u qurux badan ka dhigi kara iyo walaalkii qaaliga ah ilaahay suuraddaasi ku soo dejiyey maxamed calayhi salaatu wasalaam والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى walaalkay ilaahay waxa ku leeyahay maxamed calayhi salaatu ilaahay ka muusan tagin ilaahay ku muusan caroonin ilaahay faraha ka muusan qaadin ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma sugootinin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku muusan caroonin bal ilaahay waa uu ku jecel yahay weeyaan ilaahay waa kula jiraa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku ilaalinayaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ku dhow yahay weeyaan ma wadacaka rabbuka wama qala adduun maxaad kaga murugoonaysaa وللآخرة خير والله أدونك آخرة أياك خير بدن والله حزنك حزن ما يالا حزن أو النار إي آخرة أيو يالا فرحد أو الجنة إي آخرة يتالا وللآخرة خير لك من الأولى آخرة أياك خير بدن ما أنت أجوكتو إلهي ساسكر محمد عليه الصلاة والسلام آياتها سي قلبي أغرحنا بل دقيسو بل أخري وكعل ننصبل والله العظيم مركت وكاتقيسا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا إن إلهي وحبك الصي إلهي وكارها الغماء دونني إلهي ساسكر محمد عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى بل باك رامك هذه إيك بل الشرعي واحد أهد إيك الله أكبر ألم يجدك يتيما فآوى أي إلهي كل يحمد عليه الصلاة والسلام أول أهانجرين بل دي بسؤالك ما أنا ما تغني كهدقين ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى walaalkayga qaaliga maanta araga aad hayso dad baan haysanin guurka aad hayso dad baan haysanin caafimaadka aad hayso dad baan haysanin biyaha cabba dad baan maanta cabbi karin dhuunta uu kansar kaga dhacay dad baan maanta kaliya aan haysan dad baan maanta habeenkii aan seexan karin walaalkay naciimkay nicmada aad haysto wallahi way weyn tahay ee ha murugoonin laa taxzan ha murugoonin ilaahay naciimkiisoo dhan baa kugu dhan farxad aadan la soo koobi karin iyo caafimaad iyo wanaag iyo qurux buu ilaahay ku siiyey bal jannana way kuu dambaysaa baaraka allah fiik ilaahay ha kuu ziyaadiyo suuradda أخري أو كعل علي أو فهم جود أهان القرآن إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.